waa barnaamijkii sideedaad ee barnaamijyadaanu kaga hadallo taariikhda Soomaalida. waxaanu kaga bilaabaynaa doorashooyinkii ka dhacay Jamhuuriyaddii Soomaalida sanadkii 1969 waxa aqlabiyadii ku guuleystay xisbigii waqtigaasi talada wadanka hayay ee la oran jiray Israel, inkastoo axsaab tiradoodu ay ka badnayd 60 ay ka qayb qaateen doorashooyinkaasi. hase yeeshee mudanayaashii baarlamaanka ee ku guuleystay doorashooyinkaasi ee ka tirsanaa axsaabtii mucaaradka dhammaantood waxa markii dambe ay isku shubeen amaba ay ku biireen xisbigii talada hayay ee Israel marka laga reebo Cabdirasaaq Xaaj Xuseen. waxaa taasoo markaasi ay u muuqatay in Jamhuuriyaddii Soomaalidu markii ugu horeysay ay yeelatay xisbi kaliya. hase yeeshee dawladdaasi muddo dheer ma jirin. madaxweynihii dawladdaasi Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa bishii Oktoobar 15 sanadkii 1969 lagu dilay magaalada Laascaanood isagoo markaasi booqanayay gobollo waqooyiga ku yaal oo abaari ay ka taagnayd. madaxweynaha waxaa dilay nin ka mid ahaa askartii booliiska ee ilaalinaysay. ra'iisul wasaarihii dalka Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal markii madaxweynaha la dilay wadanka dabadda ayuu kaga maqnaa. waxa uu joogay dalka Mareykanka oo uu kaga qayb galayay kulankii golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkaasi. kulankaasi Mr Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxa uu ka hadlay bishii Oktoobar 7 sanadkii 1969 oo 2 toddobaad ay ka horeysay waqtigii talada dalka ciidamadu ay la wareegeen. hadalkii maalintaasi Mr Cigaal uu ka jeediyay qaramada midoobay waxa ka mid ahaa waxyaabihii uu u doodayay xuquuqda Falastiiniyiinta iyo in dalweynaha Shiinaha loo ogolaado qaramada midoobay. wadankaas oo sida aad imika ka warqabtaan ka mid ah wadamada awoodda fiitooda ee diidmada qayaxan la yiraahdo kulla qaramada midoobay oo xubinna ka golaha ammaanka. bal qadar aanu idinka maqashiina hadalkiisii oo af Ingiriisiya. We cannot ask a state to respect our authority when we exclude that state from participation in our decision-making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight if the principle... waxa uu yidhi Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal, suurtagal ma aha in dal aynu ka doonno inuu xishmeeyo awoodda qaramada midoobay iyadoo dalkaasi aynu iska hortaagnay inuu qayb ka ahaado qaabka aynu go'aamada ku gaadhno. waxa taasi soo raacda buu yidhi inaan la filan in awoodda Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ay miisaan yeelato haddii mabda'a in adduunyadu ay wax wadaagto indhaha laga qarsado. waxa igu filan buu yidhi inaan idhaahdo in aniga iyo waftigayguba aanu taageeri doonno sidii aanu horeba had iyo jeer u yeeli jiray wixii go'aana ee u suuro gelinaya Jamhuuriyadda dadka ee Shiinuhu in kaalinta xaqa ay ugu leeyihiin ay ka galaan qaramada midoobay. haddii ay ahaan lahayd golahan loo dhan yahay ka ammaanka iyo hay-adaha kaleba. haddaba Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal markii lagu wargeliyay in madaxweynihii dalka la dilay ayuu si degdeg ah ugu soo laabtay dalka si ugu howlgalo sidii madaxweyne cusub loo dooran lahaa oo bedela Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo intii taageersanaydba waxay u ololeeyeen in jagada madaxweynimada loo doorto Allah u naxariistay Xaaji Muuse Boqor. arrintaasi markii ololaheedu muddo uu socday waxa kulankii ugu dambeeyay la isku afkartay in Xaaji Muuse Boqor loo sharxo jagada madaxweynenimada habeennimadii Oktoobar marka ahayd 20 hase yeeshee laguma simin in taladaasu ay meel marto. habeennimadii 21 Oktoobar sanadkii 1969 ayaa ciidamadu ay la wareegeen taladii dalka Soomaaliya. askarta haddaba talada la wareegtay ee golihii sare ee kacaanka waxa ka mid ahaa Cismaan Jeelle. cismaan waxa uu imika joogaa wadanka boqortooyada Sacuudi Arabiya. aadan nuux dhuule ayaa waxa uu weydiiyey waxa berigaasi ku kalifay in dawladdii rayidka ahayd ee Soomaaliya ee la soo doortay ay afgambiyaan iyo muddada ay wadeen bal haddaynay tallaabadaasi qaadaan. buuxu waa iska jiray ilaa intii uu dadweynuhu bilaabay inuu ka cawdo dhaqan siyaasadeedkii hogaamadii rayidka ahaa ku kala dambeeyay maamulka dalka ilaa iyo markii la qaatay xurriyadda iyagoo arkaya dadweynuhu inay wada daba mareen ujeedooyinkii gobonimada loo dhaliyay. marka iyadoo arrintu sidaa ahayd ayaa haddana kalsooni darradii waxa ay sii fogaatay kadib markii dalka uu ka dhacay bishii Maars 1969 doorasho sidii loo maamulay ay reebtay urku taalo weyn
oo ummadda ku qancisay inay jirin haba yaraatee wax rajo ah oo laga sugi karayo maamuladan. haddaba ciidamadu ayagoo qayb ka ahaa shacbiga lana wadaagay walaacaas guud waxay ahaayeen kuwa arrimuhu siday u socdaan indhaha ku haya dareenkoodani waxa kusii weynaaday inuu dalku halis ku jiro oo u baahan yahay in laga badbaadiyo. arrintu halkaas markii ay maraysay ayaa waxaa la dilay madaxweynihii dalka ee waktigaas doctor cabdirashiid cali sharmaarke ayadoo loo aaneeyey dilkiisaas arrimo la xiriiray sidii loo maamulay doorashadii dalka ka dhacday sanadkaas isaga ah. marka sidaan wada xusuusano durbadiiba xubnihii baarlamaanka ugu jiray xisbiga leegada oo isagu xukunka hayay iyo golihiisii dhexe ayaa ku shireen xarunta xisbiga ee muqdisho si la isula meel dhigo ciddii bedeli lahayd madaxweynahaas la dilay. arrinta ayada ah oo is-afgaran waa uu ka dhacay dagaal afeed xoog lehna uu dhex maray raggii. taasina waxay soo dedejisay dhashada kacaanka si loo badbaadiyo qorannimada iyo dowladnimada iyo iyaga udhoodana si loo kala hagoogto. intee in leeg baa markaa idinku muddada awoodeen hawsha ama marka taladii ugu horreysay ay isugu timaadeen inaad talada la wareegtaan intee in leeg bay ka horreysay xilliga doorashada? waxaan oran karayaa ilaa 6 bilood meelaha qiyaasta. waa tacsima waxaad ka warrantaa hadda markaa isugu timaadeen kulankiinii ugu horreeyey saraakiishiinii ciidamadu maxaa waxyaabihii ugu horreeyey markaa aad ku taliseen maalan ay istidhaahdeen tallaabooyinka caynkaasa qaada? sida la ogyahay haddii nidaam cusub uu yimaad ama nidaam militariga uu la wareego xukun markaa jiray oo dastuur ku dhisnaa de waajibka ugu horeeya waxa weeye horta bal dastuurka in la joojiyo. maxaa yeele dastuurku lama saan qaadi karayo kacaan iyo military meel qabsaday. marka durbaba horta waxaan laalnay dastuurkii ayaanu joojinay ku dhaqankiisa. waxa kale oo aan ku dadaalnay bal inaan mataqaana aan maamulkii una hakanin oo sidii ay u socdaan hay-adihii dawladdu. waxaan u yeeranay nimankii agaasimeyaalka guud ahaa ama maareeyayaalka ama shirkadaha madaxda u ahaa. waxaanan siinay mandeed ama awood ay ku sii maamulaan mar haddii wasiir korka maamulaya una jirin intii wasaarad laga dhisayo. haddaba loo soo dhoweeyey afgembigii ciidamadu wuxuu ahaa mid xoog leh sida heesaha gabayada iyo shucuurta dadweynuhuba ay muujisay. hase yeeshee dowladihii ka horreeyey ee rayidkahaa raggii iyagu hogaaminayay sidee ayay u arkeen soo dhoweyntaasi ciidamada dadweynuhu ay soo dhoweeyeen? cabdirasaaq xaaji xuseen oo ra-iisul wasaare ka ahaan jiray jamhuuriyaddii soomaalida ayaanu arrintaasi wax ka weydiinay bal sida uu arko soo dhoweynta xoogga leh ee la siiyey ciidamada wakhtigaasi. waxaanu yidhi waxay u soo dhoweeyeen muxuu ahaa mid horta meel kasta oo inqilaab ka dhaco waxaad arkaysaa wixii cusub baa dadka u sacbinayaan. waxaana ku wacan waxaa weeye waxa cusub baa intii awal wixii horoo jiray aan wax ku haysanin oo ayagu ay yihiin aqlabiyadii waxay rajaynayaan nidaamka cusub baa yaa wixii hore wax ka fiican idiin keenaya oo iyagu weeye riyadaasi iyagu isu sheegayaan. marka Soomaaliya kuwaas oo kale ka mid ahayd muxuu ahaa markii military qabsaday oo khudba la akhriyay oo la yiri xukunkii hore oo idin laqay tuugada ahaa wax walba dhameeyay annaga ka fiican wax ka horeeyo military hadda ka horleeyay waraa walbaanu idin ogeeyna ma jirinin waxa hore kale ay ballan qaadeen kanaanu sameynayna kaasaan sameynayna cadaalad keenayna sidii ana wal cadaalad jirinin barwaaqaanu meel walba ka dhigayna iyo cagaar dadweynihii way u sacbinayeen. marka la yaab ma lahayn maxaa jira meel kasta oo kale Asia iyo Africa iyo Middle East iyo meel alla meeshii inqilaab ka dhacay oo dhan haddaad la socotay saasa ka dhacaysay. ciidamadii haddaba talada qabsaday oo aan intii hore la garanaynin kuwa yihiin waxa ay kala miirmeen 1 bishii November sanadkii 1969 oo la soo saaray xubnihii golihii sare ee kacaanka oo tiradoodu ahayd 25 xubnood. su-aasha haddaba la isweydiin karaa waxa ay tahay dhegaystayaal ciidamada talada qabsaday ma ku tala jireen in talada rayidka ay ku soo celiyaan? cabdilaahi xaaji ayaa maxamed siyaad barre 1972 waxa uu weydiiyey goorta ciidamadu xeryahooda ay ku laabanayaan. waxa uu ku jawaabay wallahi jeel hadalkaas waa balbalaaraya wuxuu u balbalaaraya sida hadii adigu u fakarayso ama hadda meesha ka timid looga fakaro iyo sida halka aan uga fakarayno waxa suurtooda inay kala duwan yihiin.
marka haddaan kuu jawaabo saan halka uga fakarayno baan kugu jawaabaya waxaanu leenahay xukunku waa inuu ku jiraa shaqaalaha iyo beeralayda iyo dadka shicbi weynaha ah iyo askarta inay dad isku dada yihiin laba midab ayaan kala lahayn bay annaga nalata hase yeeshee meesha Soomaalidu amay waajib ay u tahay inay ka fiirsataa amaan annaguba hadda aan qabno in laga fiirsadaa inay tahay war ninka aynu hawsha u dhiibanay manin ikhlaasaha oo si fiican noogu shaqeynayo caadilnimo noogu shaqeynaya dhibkanagu is dhibkiisa yahay dantanada annagoon ogeyn nooga shaqeynaya bas waa nin khatalaya oo xoolaha naga xadahaya oo beera nagu dul samaysanaya oo daara nagu dul dhisanaya oo qaraabo kiil samaynayo dad xigaala ah meel ka buuxsanaya bas waa nin daacad ah xuquuqda jecel iyo hor u kaca ummadda kulligeedoo idin annaga halkaas bay saas bay nooga muuqataa marka xukumkii anagu waxaan isleenahay hadda yaa haya يعني مثل حكم عسكري باتري أنا مو يهدي أنا واجي ورا عسكري أهانش تدان اللي قلت المامين أنتي سكرية هي صوتك كده اللي يرضى متعلمين تا أو رعاية تا أو ضلك تشوفي صو ما هي يعني هذا بس وحلا ميدا دوتشي دوا قرنا هي election قرمات سمين إنسان أياد إلى هذا تاسع الصعطان حقين الناس باللوجو فكر هي وحنا سمين دونا مركي ضدكو وهذا بهير في عم بسمر هي أي maskaxdiisu ay sida aan u sheegay ay u noqoto mid Soomaali ikhlaasa marka talada ay goosanayaan iyo ninkay xulanayaan labadaba ay yaqaaniin mid wax ugu yaala oo iyaga maslaxadooda hogaaminaya inuu yahay mid maslaxadooda ka horjeeda inuu san noqonin barnaamijkii toddobaadkanina dhagaystayaal intaasi ayuu ku dhan yahay